iska daayo waxyaalaha aan dhageysto bisinkoy inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun 1.5 milyan wadnada bacid kuma harine subhanka qaadira aba umada ilaahay bismillaahir ilaahu rabbi waxaan dunida ka qabo wadad ka dulqaad lillahi wa inna ka gaashantaa oo dhaha maskiga marka horeba xiraba la yiriye ana amaan la'aan iyo bahalkiisa dhigay waa inaan dadka ka xirtaa oo ka bahalkiyotaa aniga waxaan ka awte aan difaac galo difaac wax dhaaman lawa ilaahu rabbi dadkii dalka qabo bal si fiiriyo bismillaahir rahmaanir rahiim maraykan baa kaalinta koowaad ku jira kaalinta labaad talyaaniga ilaahu rabbi ambal fiiriyo dalka yaga hooyo sideed kiis buu maraya bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu rabbi waxaan sameyn ilaahu rabbi bahalka naga qabo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bal 1 milyan oo dad 1 milyan iyo 500 kun oo bini aadan ah 1 milyan iyo 500 kun oo bini aadan ah oo ciidamada harin bismillaahir rahmaanir rahiim warniyo inta weyd guri ku jir baan ahaa marka guriga ma fadhiyo laanahay marka ninka geedka fadhiyo ninkii Ismaaciil ah saaxiibkiga ninka bal iska soo wareysto oo bal dunidii waxba bal dhacay bal ninka saaxiibkiga baan balu tagaya aan soo wareysanayaa bal sayida wallahi waa saaxiibkiga السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ودي والله سلامتي قصه قالوا كدحيسا سلامها سلامته والله halkaaga isku salaamanta waliba saas ku salaam walaal maxaa dhacay ya waxana waalay waa cudurka maadan maqal bal soo fariiso walaal waa yaabay anoo halkaas soo socdo maxaa iska wastirnoodo farax taagtaagayo waxaan ku arkay halkaaga iga fadhi walaal halkaaga cudur baa dadkii waalay kala soo dhawaan bal halkaaga iga joogday waxa ku jira waa maxay ya waxa ku jira waxa kan waa difaac لسه دفاعيه عذر كورونا فيروس ما مقش سوما مقل والله وروح horta waa tagay argab weynaada ma noqday ilaa iyo hadar taa waxa laga diiwaan galiyay 1 milyan iyo 500 kun oo qof uu ku dhacay waxaas badhintay mise wax gaadeen intaas ma dhiman intuu ku dhacay dhimashadu waa badda waa boqolaal kun meemaraysa bismillaah mid baan ku sheegayaa hadii talama iga rabtaa adeero difaac وعاش كله سويسو قلفسي قادو انا قلفسيديد مع جيبك ku wataa السلام عليكم كورتجا joog joog balaalka naga joog halka joog balaalkaaga fariiso عليكم السلام halkaagaas ku salaamanta maxaa dhacay maxaa soo siyaaday habal noo soo durkin bal maxaa dhacay dhalinyaro hargab weynaada baan waalay waxaan u xiranahay waa dartii ha afka xir baa la yiri afka waxa la diiday in hawada waa maqlay waxana waa hargab weynaada horta ما حكويدي يا با نقد بلاك فريسو يا امدتن تلفون تابن تاغرتين كاساسا kaga tagaysa isaga leh kooyagan ka qarsan iska leh nimayo ha horta maxaa la cararaysaa waxaan kala cararaynaa waxaan halka geesaha u kala fadhino ma fahan islaamii masar ma xiran waxa dhacay ma taqaanaa horta inagu horta walaalayna naga durug amarka qaado halkaaga fadhi geeska kooraha naga fariiso waaba qabaa siri war waaba noo sidaaba nooca sida waaba kuwan waa siri ma qaba noocaas waxaad nagu soo dhawaanaysid baa qaba war waaba isagiiba waxaanu ku tuhumaynay oo hadal ka sheekeysanaynay oo idinka jira gaali caadi ilaha allah maxaa jira ragga waa u jeedaa inay iska ilaalinaysa hadeerba iska asaga leh yadir maxaa jira ilaha allah wareer dad waxna walaalaah oo muslim oo ma garanaysa salaantu waa xaq walaal gacmaha la isma kor saaray yarkaad soo waan ku salaameeyaa bal axwaashaada keen barba keenta walle ma kufaarta warkood iyo fariimaha aad ka heshaad ka rumaysa dhabtii oo hadda waad ka birto ku meel baad ka istaan qof walba oo ku salaama war kara weeye ka keen bal gacantaada warkabta bal istaag covid-19 iyo corona la wareegaya inoo keedi salaanta
ninkaagan ka dhanaya xanuun rabbi keeniyo covid-19kan koronaha ka baqayo ee dadkiiba ka caagan inuu kuraas la fariistiyo koob shahan baa la cabayn waxa waalidka faaxshee hargab weeye ku gaaray kaniina loo heli waa oo adaaba karayo afkaaga ku sheegto kaniini loo heli maayo inta aadan karaarin oo qandhadiis ku gaarin kooma aadan gelin dheer soo inaan iska dhowrno kama fiicna walaal haddaad keentay oraa kan wanaagsan midii iyo kalaamkayga dhegayso horta waa marlakiin koroonuhu waa wax baas oo ka gaan iyo ka gaan kuba faafa erladii kariim baa sawato kumanaan nimcadiisa ku kibriyo xamdiyeyn ayuunbuu ku dhammeeyaa aan kaa dhexgale miyaynaan kibrino ku dhaqaaqin dunuubta dulmigaaba ka koobo qabyaaladu waa ku xigtaaye miyaynaan ku goyno ilaahay ka caron ilaahay koonka abuuraa kitaabkiisa ku sheego dad baa keenay gaf weyn weliba u gooyey ku ciyaar niyo waanku kasoo kalaamkaaga dhageystay waxaase aan la kashlayo wadnuhu ikardhanayay markii uu yimid covid koroonaha baasi dadkiiba ka kacayo nin walba kadinkiisa si u keeno wax buuxsha meelihii keydka ahaa kiyuu bay u galeen iskuuladii waa ka badeen ku daroo jaamacadihiina qafil bay ku dhufteen dadkii baa suuqa ka yaacay kala rooray markaasaan keligay sasba ka qaaday dadkii war kitaabka qur-aanka inta aayad ku taalla kaamil weeye dawo buuxda ku tufo casharkiisa kuna mayro korkaaga wax kalena ha raadin ninka arrinkiisu waa sax isla garateen nimanka waa sax sheegteen waxaad garateen maaha laakiin mid baan kugu darayaa in adeero waan kala durugno anu booskayga hore kama soo dhaqaaqay iga bahalkayga nimanka waa kala durkeennaa arrinkan idinku darsanaya wuxuu yahay mataqaan dowladaha caalamka iyo dowladaha nala jaarkaaba intaba nimanyahow waxay sameynayaan bahashtan afka lagu xiranayo waxay tahay maskaraadka afka lagu xiranayo dalku shacabkooda waxay uga dhigeen bilaash soo waxaad garateen ma waxaan gartay in adeero aan ku adaa ku haystee oo tan hadeer ma garanaysaa tan hadeer waa haddii la qiyaaso lacag ahaan waa $1 ka war hadda aanu lacag baan ka soo bixiyey jeebkaygaa shaqeeya lacag baan ka soo bixiyay dadkaan gaba karin ka war dad baa jira aan haysan baa jira dadkaan haysan dawladdu u gad ya may dawladdu u gad dawladdu deeyada laga dawladdu waa ku codsanayna inay soo gaarsiiso oo meelo bulshada ku badan yihiin la iskaga dhigo galofisiyada waliba kuwa galofisiyada ma garanaysaa albaabka iska riixaysa sadaqad baa furanaysa kawar baa tagaysa sadaqada u badanahay sadaqada inta qiimay ku fadhiyaan anu waxayga waa wataa qalabkay kama soo tigin ayada 25 legacy waa dhace dawladdu waxaan ninkan 25 ka haysan ka waran qutmaalkiisa xataa soo qaban xagee ka galaysa dawladdu waxaan u sheegaynaa ama ka codsanaynaa inay bulshada soo gaarsiiso galofisiyada difaaca cudurka coronavirus ganacsatada waxaan leenahay inta wax ku oolka waqtiga iyo inta wax ku oolka waqtiga aad ka waqtiga aad war ganacsi waryaa mid ku sheeg waqtiga aad baahidu taalo ganacsi lahay saadar bal hortiga dur walahi taaban waqtiga ay baahidu taalo dadku u baahan yihiin iyaga horta ka faa'iideysanayaan balse waxa kani waa xaalad adduunka dhan wada qabsatay ma garatay marka waa in ganacsatadu maamulku intaba si degdega bulshadooda u soo gaarsiiyaan agabka lagaga hortagi karo coronavirus hadda mid baan adiga ka codsanaya in adeero ku kiciyo ilaahay ka kiciyo Allah amiin laakiin se islaam walaalayaal islaam qadaan doonayna qadab nabadi oo misla qadeelena hadda isla qadaysaan adeero isku seexo adeero salaam aan wada qadeen salaam oo salaam wada Allah halka loogu wada qadaynayo